gabdhaha Soomaaliyeed ee quruxda badan fursad baa u soo baxday fursadaas oo ah hadii ay ka qayb galaan bilada lagu guddoonsiinayo gabdhaha ugu quruxda badan dalka Soomaaliya ee loogu magac daray Miss Soomaaliya ayaa waxa lagu qabanayaa magaalada Muqdisho haddaba waxa ka soo qayb galay mid ay ka foolxumayd mid ay ka qurux badnayd oo waxa la sheegay in sideedaba xagga quruxda marka la qiimeynayo gabadha ka qurux badan tahay ama gabadha ka foolxun tahay siiba gabdhaha foosha xun leh in ay markaasi ku guuleystaan biladan markaasi oo waxaan xasuustaa Afrika iyo sidoo kale adduunkuba waxaad arkaysaa gabadha ka foolxun tahay inay ku guuleysanayso bal arrintan ayaa kale arka waxaa goor dhaweyd la soo saaray 13 gabdhood ee u tartami doona bilada lagu magacaabo Miss Soomaaliya ee 2020 bilada gabadha ugu quruxda badan Soomaaliya oo dhan biladan oo sanad walba la bixiyo ayaa sanadkan loo soo xushay 13 gabdhood oo midba kala ka dhicin cajiib kadaba arrintan ayaa isreereebkii ayay timi oo waxa markaas gabdhahan la sheegay Soomaaliyeed in ay isreereebka ku kala hadhi doonaan oo midba ka quruxda badan ay hadhi doonto mid ilkaha bira ku xidhatay iyo mid indhaheedu kulkuleeyeen iyo sidoo kale mid bishimaha qurux badan tahayba iyo sidoo kale mid wajigeeda qurux badan yahay adduunku sida uu quruxda u yaqaan iyo sidoo kale sida Soomaalidu u taqaano waa laba naqshadood oo kala duwan sida Soomaalidu ay u taqaano waa inay gabadh buurnaata malaha waa inay dhaxyaraata bay ku leeyihiin waa inay wajigeeda qurux badnaata inkastoo caalamka gabdhaha marka la xulayo ay gabadha ka dhuuban tahay ka foolxun tahay quruxda adduunka la siiyo waxaan xasuustaa maalin dhexdaas Afrika biladaha iyadoo la qaybinayo gabadh aad u foolxun oo biladiiba ku hagaagtay cajiib waa mid aan la yaabay ahayd maalintaas waxaan daawanayay qaybta commentsiyada oo markaas faalooyinka ay ku bixinayaan dhalinyarada Soomaaliyeed soo kale dadka Soomaaliduba gabdhahan mid bay ku dhaganayeen oo taalka sawirkiina taalka muuqata qaar baa waxay ku leeyihiin way soo lugaysay qaar baa waxay ku leeyihiin gobolkaaga iskaga laabo qaar baa waxay leeyihiin tani lagama yaabo inay ku guuleysato waxaana macquula 90% ama 80% inay gabadhaas ku guuleysto sababtoo ah quruxdu sideedaba Soomaalidu quruxna ma qiimeyn karaysan malne dad qubra oo goobtaas imanaya marka la qiimeeyo in ay noqonayso ama kaalinta koowaad ama kaalinta labaad xaga tan yar ilkaha dahabka alena waaba ku daysay taasi oo sababtoo ah looma baahna way ku leeyihiin dadkan quruxda qiimeeya qof jirkiisa wax ka bedelay tusaale ahaan diyaano oo kala marsaday waxyaabo kale isku qurqurxiyo maray sida wajiyada iyo waxyaabahaas qofku sidii Ilaahay abuuray markaas cajiib ay tahay ugu dambeyntii daawade ee gabdhaha Soomaaliyeed quruxda badan ee halkan iga daawanaya booskaas waa idin sheegay inkastoo hadda 13 hablood loo qoondeeyay haddana waxaan rajaynayaa inaad sanadka kale aad markaas isku day sameeysan haddaydan dhiman Ilaahay idinkiis waadna mahadsantiin bal muuqaalka si share gareeya Soomaalida kale gaarsiiya hablaha Soomaaliyeed iyad u maleynaysaa in ay ku soo bixi doonto gabadha ugu quruxda badan u talagalay Miss Soomaaliya bal committee hoose noogu reeb anagoo markaas lambar ku dul qorana lambarkana dooro gabadha aad oran doonto way qurux badan tahay waana mahadsantiin fadlan waxaan idin ka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabduweli Nadaara YouTube-kana subscribe noo saartan page-kana follow iyo sidoo kale like waad ku mahadsantiin